tababar kor loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya xafiiska ay ku leedahay Jubbaland ayaa maanta ka furmay magaalada Kismaayo. warbixintan waxay noo faahfaahinaya Xasan Yuusuf Maxamed. tababarkan loo qabtay shaqaalaha xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. furitaanka tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa daahfurkiisa ka soo qayb galay agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta Jubbaland Cabdisalaan Xasan Xuseen iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdalla. agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta Jubbaland Cabdisalaan Xasan Xuseen oo furitaanka tababarkan ka hadlay ayaa sheegay in shaqaalaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta Jubbaland inay ka faa'iideystaan tababarkan isla markaana uu qayb ka qaadan doono kor u qaadista aqoontooda. tababar ku aadan kobcinta garaadkooda aqooneed sida gadaashayda ku qoran ama tabeelahan aad arkaysaan qaybta koobaad oo ah anshaxa shaqada iyo shaqaalaha iyo qaybta labaad oo ah shuruucda socdaalka iyo jinsiyadda maadaama uu xafiiskan yahay xafiis bixiya adeeg dadweyne oo la macaamila dad badan oo kala duwan oo muwaadiniin iyo ajnabiba leh waxaa aad iyo aad muhiim u ah saraakiisha ama shaqaalaha hay'addu in ay ka haystaan faham ballaaran habdhaqanka iyo shuruucda ay hay'addu iyo xafiiskan ku shaqeynayo. sidaas iyo daraadeed maanta waa maalin oo muhiim ah, waa maalin shaqaaluhu ay haystaan fursad dhammaan dadkan fadhiya arkaysaan waa saraakiishii waaxyaha kala duwan ee hay'adda. waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inaan maanta fursadan haysano. shaqaalaha iyo saraakiishana waxaan kula dardaarmayaa in ay xambaaraan cilmiga la barayo maanta oo nin walba xafiiska uu ka yimid uu kula noqdo kuna maaragtay dardargeliyo kuna shaqeeyo sidaasna looga faa'iideysto. agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdalla ayaa sheegay in ujeedka Kismaayo uu yahay in shaqaalaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta Jubbaland inay kala qayb qaataan sidii sare loogu qaadi lahaa aqoontooda.